2020 waxa uu ahaa qaraaxa miiran qormo ku magac looga dhigay magacyo badan iyo halheesyo ayaana baxay sanadkan siyaasadda Soomaaliya waxa ku baxay magacyadan iyo halheesyadan dadka aadka uga yaabiyay qaran dumis oo la sheegay in inta badan uu isticmaalayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaswadayaal oo uu isticmaalayay madaxweyne Farmaajo Samareeb oo uu bixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uuna u bixiyay magaalada Dhuusamareeb CPP oo uu bixiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga Wadajir uuna ula jeeday cayayaanka baraha bulshada ereyga Kaluundi oo uu bixiyay Professor Maxamed Cumar Dalxa oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Atlas oo uu bixiyay madaxweyne Waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Yaasir Carafaad oo hadalhayn ahaan uu u bixiyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland saqiir siyaasadeed oo sanadkan ka mid noqday hadalhaynta ugu badan ee ereyada siyaasadda waxaana bixiyay Sambalowshe taliyihii hore ee NISA Faranti Jini ah oo isla Sambalowshe uu bixiyay isla markaana ka mid ah hadalhaynta caan baxday ee siyaasadda Soomaaliya 2020 aynu ku guda jirno anigoo og oo looga bartay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre qorigeyga cadda oo uu ku dhawaaqay madaxweynihii hore ee dalka Cali Mahdi Maxamed Gaboobe Gareen oo annown loo bixiyay thumma wallahi oo ereygaasi hadalhayntiisa uu ka dhashay khudbad uu jeediyay madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed ceelasha biyaha wali waa ay furan tahay oo laga hayo xildhibaan cusub leh dad badan intii ay yaqaaneen waa la isla dhaafay Star War oo laga hayo xildhibaan indho Sentino Fagi Ale wasiir Juxa ayaa laga hayaa wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya waxaana ereygaas uu kamid yahay ereyada hadalhaynta dhaliyay ee siyaasadda Soomaaliya sanadkan 2020 libax laba maaha waxa sanadkan aad u adeegsanaysay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Deeriye